ayaa qarax kula fulinaysa ee gaarigan wad jowhar gey gobolkii waxa ka tirsanahay xisbada macnaha oo magaalada ka ah magaalada Jilib tuulada labadan eedeysane iyo mid maqana ah ayaa isla qorsheeyay una qalab qaatay sidii loo qaarijin lahaa mas'uul xil ka haya gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay doonayeen inay la beegsadaan qarax balse uma noqon siday doonayeen shirqoolkoodii ayaana ku soo dhamaaday in maanta fagaarahan cadaaladeed lagu xisaabiyo iyagoo eedeysanayaal ah Cabdinuur Cali Cabdi Raagi ayaa 2018 qawaariista kaga biiray Jilib kadib tashkiilinta dhagarqaba lagu magacaabo Cabdullaahi tababar 2 bilood socday oo Saakow Jubbada Dhexe uu kula qaatay 30 dhagarqabe markii uu dhameystay waxa uu iska xaadiriyay jabhad ku dhuumaaleysata Shabeellaha Hoose isagoo ka qayb galay dagaalo ka kala dhacay Bariire Owdhigle Ceelbaraf iyo meelo kale sanadkii 2022 ayaa loo wareejiyay qaybta qaraxyada tababar lagu baray isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan kadib waxa loo bedelay gobolka Hiiraan si uu u sii anba qaado dhagarta iyo daadinta dhiigga shacabka Cabdinuur iyo eedeysana maqana ah oo lagu magacaabo Cabdikariin ayaa loo diray Jowhar si ay u soo indheeyaan guriga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow oo la doonayay in lagu beegsado weerar ismiidaamin ah markii ay calaamadeysteen guriga gudoomiyaha kana eegeen dhan walba ayay ku laabteen deegaanka Shaw ee gobolka Hiiraan si loo guda galo fulinta dhagarta eedeysanaha maqanaha ah oo ku haray deegaanka Shaw ayaa soo sagootiyay Cabdinuur oo uu heliyo eedeysana Xasan Dhuubow Xuseen oo halkan nala jooga wadana ka ahaa gaari hoomey ah oo qudaar lagu soo raray si gaariga aan looga shakin loogana barto Jowhar ka hor fulinta weerarka maadaama darawalku caan ka ahaa caasimadda Hirshabeelle balse iyagoo aan gaarin magaalada ayay u gacan galeen hay'adaha ammaanka 12 bisha 10 ee sanadkii hore 2024 taleefon aligu soo wacay waa li tashkiilsay waxa waaye anaga nagu soo bir iskana shaqeyso gaarigaada iska wado baabuurtaada iska wado gaadiidleen ah baabuurreeyana treeleen ah kadib nin ayaga kamid ah oo hadda ninkan kan ah oo nin qaraaba kora anahay ay soo wacay yiri waa nimankan aniga liiskaaga raadinayo lug la gal shaqadaana iska wado way baan ku iri 2 bil ka bacdina waa la qabtay gaarigan aan wadiyo hadda aan ku soo baxayna aan wadine ninkan oo soo wacay gaarigan meesha igey Cabdiraxmaan Cabdullaahi Nidira Cabdiraxmaan Cabdullaahi kale anaga meesha gaariga ugu soo dhibay ugu wardabeys taleefankiisina xagga laga wacay way dhici way waa bixi way inta kugu dhiibay waxa ugu dhiibay Shaw gaariga u saaraa soo gaariga u saaran aan u tagay gaariga liigay waka gobolkii waxa ka tirsanahay xisbada macnaha oo magaalada ka ah magaalada Jilib tuulada ala joogi jiray ala shaqan jiray inta garba ku birtay tare ka joog jiray xisbada waa la shaqan jiray cunto iyo raashin wax soo qaadi jiray waka kee u shaqo jiray inta Jilib xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sharaxay doorka mid kasta iyo shaqooyinka ay u qabteen qawaarista baaraha kiiskan ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa maxkamadda la wadaagay natiijadii ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xiraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme Xasan Siyaad Maxamed Tarsan ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii ay ku soo eedeeyeen mudane gudoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koobaad Cabdinuur Cali Cabdi Raage iyo eedeysanaha labaad Xasan Dhuubow Xuseen Ibraahim waxa ay ka tirsan yihiin ururka qawaariijta ee Al-Shabaab oo ah urur hubeysan oo qaran dumis ah eedeysanaha koobaad Cabdinuur Cali Cabdi Raage eedeysanaha ayaa Jowhar yimaaday asiga iyo eedeysana maqana ah oo lagu magacaabo Cabdikariin halkaas wixii ka sameeyeen indhayn ayay ka sameeyeen eedeysanuhu waxa uu kooxda ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab qaybteeda qaraxyada ayuu ka tirsan yahay dagaaladii Ceelbaraf ka dhacay ee ay ku qaadeen ciidamada ADMIS markii ka laabteen kadib waxa loo wareejiyay qaybta qaraxyada ayaa loo wareejiyay tababarro ayuu soo qaatay qaabku qaraxyadaas iyo waxyaabahaas uu u fulin lahay oo dhan ayaa la soo baray Jowhar ayay yimaadeen asiga iyo eedeysana maqana ah oo lagu magacaabo Cabdikariin ayagoo mootofeekeen wato indhayn ayay ku sameeyeen waxay bartilmaameedsadeen ay indhaynayeen iyo calaamadeysteen guri uu leeyahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellada Dhexe markay shaqada dhameysteen ka bacdi eedeysanaha iyo Cabdikariin oo eedeysana maqana ah way laabteen waxayna ku laabteen deegaanka Buuqa Qable markuu goobtiisii ku laabtay ayaa waxa eedeysanaha lagu yiri markaan waxa wadaysaa gaari hoomey ah waxa geynaysaa degmada Jowhar dadka deegaanka
waxaa la rabaa inay bartaan gaariga markii jowhar laga bartay kabacdina waxaad ku fulinaysaa meeshii soo indheysatay ee soo sahansatay ayaa qarax kula fulinaysaa ee gaarigan wad jowhar gey waxaana darawalkaaga noqonayo eedaysanaha labaad ee xasan dhuubow xuseen ibraahim mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh sidoo kale eedaysanaha labaad xasan dhuubow xuseen wuxuu ku biiray asiga kooxda qawaariijta ee al-shabaab bishii 7/2024 wuxuuna kaga biiray deegaanka buuqaable oo deegaan ka tirsan ah gobolka hiiraan shaqadiisu sida uu qirtay asigaba waxay ahayd qaybta gaadiidka ayuu ka tirsanaa gaarigan dhagarta in lagu maleega la rabay ee qaraxa in degmada jowhar loogu fuliyo la rabay ayuu darawal ka ahaa halka eedaysanaha koobaad ee qaybta qaraxyada ka tirsanna uu ahaa asigana kirishbooy ahaan uu u isticmaalay asigana wuxuu jabiyey mudane gudoomiye qodobka 6aad farqadiisa labaad qodobka 10aad qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo lala akhriyo qodobka koobaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waxaan codsanaynaa mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedaysanayaashani waa eedaysanayaal halistooda leh qatarna ku ah nolosha bini'aadanka mana aha wax lagu sii dhexdayn karo waxaan codsanaynaa in lagu qaado qodobada aan ku soo eedayn loogana naxariisan maxkamaddu way mahadsantahay qareennada eedeysanayaasha ayaa sheegay in muwakkiliintooda aan loo hayn cadeymo dhammaystiran maxkamaddana ka codsaday in la bari yeelo marka saas daraaddeed ninkaas waa nin dhallinyaro ilmo yar ah waxaa maxkamadda sharafta ka codsanaynaa in loo tixgeliyo dooda uu ku dooday oo ah inuu uusan xisbada uu ku biiray uusan hadda uusan waxaan kaloo la sheegaya uusan ahayn maxkamadduna ay aad ugu naxariisato maadaama yaa nin aad u da'yar wax hadda lid ku ah qaranka oo u geystay oo qaranku dhibana maanta ka yahana aysan jirinin qarankana qayb ka mid asagu uu yahay xuquuqdiisana uu u taagan yahay waxaa maxkamadda ka codsanaya inay tixgeliso dhallinyaronimadiisii ilmo yar inuu yahay ay maxkamaddu u naxariisato tixna geliso maxkamadduna waa mahadsantahay shukran mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh muwakkilkayga xasan dhuuwow xafiiska xer ilaalinta wuxuu ku soo eedeeyey qodobada 6aad iyo 25aad labadaas qodob markaan ka difaaca marka mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh qodobka 6aad wuxuu leeyahay ka mid noqosho iyo farqadiisa labaad wuxuu dul istaagayaa in mataqaanaa muwakkilkayga uusan qayb ka ahayn dagaal inuu galo ama fal uu sameeyo because xubinka noqoshada ururka bes ayuu sheegayaa marka mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh garsooreyaal iyadoo la cuskanayo qodobada 110 iyo 163 oo caddayn la'aan aan loo haynin in maxkamadda ay tixgeliso xasan dhuubow codsigiisa ayna weydiiso isla markaasna ay xorriyadiisii dib ugu celiso maxkamadda waa mahadsantahay maxaa ku baxay maxaan codsanay maxkamadda waxaa ka codsan lahaa xorriyaddeeda inaad dib u helo iyo cadaaladda maxkamadda inay xorriyaddeeda hor ay siiso waxaan maxkamadda sharafta laga codsanaa inay xorriyaddeeda aan dib u helo gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn